بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada saaxiibayaal ku soo dhawaada qayb kale oo muhiim ah kuna saabsan wararkii ugu dambeeyay ee soo kordhay dagaalka adag ee soconaya gantaalada la isweydaarsaday xaaladda caawa sida ay tahay dhaqaalaha tirada badan ee Israa'iil ka baxay gantaalada ku dhacay dhowr meelood macluumaadiyada ugu dambeeyay maxaa ka soo kordhay arrinta isdhaafsiga maxaabiista waqtiga rasmiga ee maxaabiista la isdhaafsanayo oo la soo bandhigay waxa kale oo aan eegi doonaa hadalka adag ee ka soo yeeray madaxweynaha dowladda Masar Cabdulfataax al-Siisi qodobo kale oo muhiim ah ayaa raaci doona soo dhawaada mar kale ka mid noqon saaxiibadeena aad baad u mahadsan tahay Marwa Fertility Center xarunta daweynta cudurrada keena dhalmo la'aanta insha Allah waad ku dawoobi la xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqdo mahadsanid haddii aan ku hormarno wargeyska Bloomberg ee ka soo baxa dalka Mareykanka waxa uu leeyahay Israa'iil maalin kasta marka la eego dhaqaalaha kaga baxa howlgalka ee dhinaca militariga ah ee marinka Gaza waxa uu gaarayaa 270 milyan oo dollar waa maalintii 270 milyan oo dollar waxa la isweydiiyay tirada guud ee kaga bixi karaysa Israa'iil imsa ay gaari karaysa howlgalka marka wargeysku waxa uu leeyahay waxay gaari kartaa ilaa 48 bilyan oo dollarka Mareykanka haddii xal degdeg ah aan loo helin howlgalka military ee ka soconaya marinka Gaza aynu eegno dagaalka aadka u xooggan ee dhacay maanta hadda waxa ka soconaya marinka Gaza iyo gantaalada la isweydaarsaday xarumaha ay bartilmaameedsadeen dagaalyahanada iska cabinta ee Falastiiniyiinta guutada al-Qassam waxay shaaci ka qaadeen inay bartilmaameedsadeen xarumo kala duwan oo ay lahaayeen ciidamada Israa'iil oo u badan saldhigyo dhinaca militariga ah waxa soo baxay hadda in dagaal aad u qaraar uu ka soconayo xaafadda lagu magacaabo Juhri al-Diiq xaafadan waxay dhacdaa agagaarka bartamaha magaalada Gaza sidoo kale dagaal adag ayaa ka soconaya dhinaca waqooyi waxaana muuqanaysa dhinacyada in 48 saac la soo dhaafay ay aad u dagaalameen midba midka kalena uu ka faa'iideysanayo waqtiga xabajoojinta rasmiga ay bilaabanayso guutada Ciisadiin al-Qassam waxay shaaci ka qaadeen xaafadda Juhri al-Diiq waliba dhinaca bartamaha bari ee magaalada Gaza ah iyo xaafado kale ay ku la dagaalameen ciidamada Israa'iil taangiyo badan ay ka gubeen askarna ay ku heleen meel cidla ah oo ay toogteen muuqaaladan ay soo bandhigi doonaan waxa kale oo ay sheegeen inay bartilmaameedsadeen saldhigga military ee Muftahim lagu magacaabo saldhiggan waxay sheegeen gantaale inay ku garaaceen halkaasina ay ku dileen dhowr ka mid ah ciidanka Israa'iil hubkii ay halkaasi ku haysteen ciidamada Israa'iilna ay burburiyeen ciidamada Israa'iil dhankooda waxay xaqiijiyeen maanta inay xireen agaasimaha cisbitaalka Al-Shifa agaasimaha ayay sheegeen su'aale inay weydiinayeen Maxamed Abu Salmiya ayaa lagu magacaabaa hay'adda sirdoon ee gudaha ee Shiinbeed la yiraahdo ayaana la sheegay inay xirtay agaasimaha guud ee cisbitaalka Shifa laakiin faahfaahin dheeraada lagama bixin sababta loo xiray guutada Al-Qudus haddii aynu eegno oo garabka military dhinaca Islaamic Jihadna dhankooda waxay sheegeen in ay goobo kala duwan oo ciidamada Israa'iil ay ku sugnaayeen ay weerareen maanta caawana ay kula dagaalamayaan ciidamada Israa'iil dhinaca waqooyi galbeed ee magaalada Gaza waxa kale oo ay sheegeen inay gantaale ku garaaceen saldhigga lagu magacaabo Netzarim saldhiggan wuxuu 5 kiiloomitir u jiraa dhinaca koonfur galbeed magaalada Gaza waxayna sheegeen saldhiggan inay ku burburiyeen agab military oo ciidamada Israa'iil ay lahaayeen maadaama dhowr gantaal ay ku weerareen halkaas goobaha kale ee la weeraray caawa waxa kamid ah magaalada Kibbutz lagu magacaabo magaaladan waxay u dhowdahay marinka Gaza waana goobihii ugu horeeyay ee dagaalka adag uu ka dhacay 7 Oktoobar dhinaca Israa'iil waxa la sheegay in xaafadda Khan Yunis ay ku burburiyeen 3 kamid ah masaajidada ku yaalay xaafadan afayeenka dagaalyahanada iska cabinta Falastiin ayaa goordhow warbaahinta la hadlay waxa uu yiri tan markii howlgalka dhanka dhulka uu bilowday 27 Oktoobar waxaan burburinay 335 gawaari oo ah gaadiidka ciidamada Israa'iil ay isticmaalayeen waxa kale uu yiri 72 saac la soo dhaafay 33 gaari ayaan burburinay 48 maalin ayuu soconayaa howlgalka loogu magac daray duufaanta Al-Aqsa waxa uu yiri mujaahidiinteena waxay sii wadaan inay dagaal toos ay la galaan ciidanka gumeystaha ay ku soo duulay dhulkeena 3 maalin ee la soo dhaafayna waxaynu qaadnay buu yiri howlgallo safmar ahaa kuwaas oo lagu guuleystay laguna dilay xubno badan oo ka tirsan ciidanka cadawga mid ka mid ah ciidankeena ayaa waxa uu weeraray buu yiri 8 askari oo ku sugnaa dhanka bari ee cisbitaalka Rantizi ee dhinaca wadada Sheikh Radwan lagu magacaabo dhammaantoodna waa la dilay qaarkoodna waa la dhaawacay ayuu yiri waxaan kaloo aan bartilmaameysanay ciidamo doonaya dhinaca lugta ah iyagoo koox ah inay galaan xaafadda Beyd Xanuun
dhammaantood waan dilnay buu yidhi afhayeenku goordhow ayuu war-saxaafadeed soo saaray waxaana uu sidaasi uu ku sheegay wadarta guud ee gaadiidka ay ka gubeen ciidanka Israa'iil iyo askartii ay dileen inkastoo Israa'iil ay qarinaysay tirada askarta la dilay haddana in 335 gaari laga gubo ciidamada Israa'iil tan iyo 27 Oktoobar waa tiro aad u badan waana tiro aan laga filaysanaynin in ciidamada iska caabinta ay gubeen maalmihii la soo dhaafay waxa kaloo afhayeenka hadalkiisa uu ku daray waxaan diyaar u nahay inaan sii wadno dagaalka aynu la galayno cadowga wax micnaha ma lahan buu yiri in waqtiga dheeraado ama uu yaraado waxa uu yiri cadowga qasaaraha bini'aadanimo ee gaaray ilaa iminka waa bilow haddii uu go'aansado howlgalka inuu sii wadana waynu tusaynaa wacdare kale sidaas ayuu yiri afhayeen ku hadlay dagaalyahanada iska cabinta Falastiiniyiinta oo goordhow war-saxaafadeedkan soo saaray dagaalku maalintii 48aad ayuu soconayaa laakiin hadda waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan in xal rasmi ah laga gaaray joojinta dagaalka muddo maalmo ah waxaa dowladda Qatar ay ku dhawaaqday xabajoojinta inay bilaaban doonto maalinta biri oo Jimco ah waliba si rasmi ah ayaa loogu dhawaaqay Jimcaha biri in xabajoojinta ay bilaaban doonto waxayna xabajoojinta si rasmi ah u dhaqan galaysaa 7 subaxnimo ama 1 saac xilliga geeska Afrika annaga marka ay noo tahay 2 saac ama 8 subaxnimo waaye geeska Afrika marka ay u tahay 8 subaxnimo ama 2 saac ayaa si rasmi ah ay u bilaabanaysaa isdhaafsiga maxaabiista waxaana lagu waramayaa in ay sii deyn doonaan dagaalyahanada Hamas ilaa iyo 50 maxaabiis ah laakiin hal maalin ma deyn doonaan xafiiska ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu goordhow qoraal ayuu soo saaray oo waxay yiraahdeen waxaynu helnay liiska magacyada maxaabiista la doonayo in la sii daayo maalmaha soo socda xabajoojinta 4 maalin ayay socon doontaa dhinacyada iska cabinta Falastiiniyiintana way soo dhaweeyeen oo waxay yiraahdeen waynu ogolnahay xabajoojinta muddada 4 maalin ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Qatar Majid Al-Ansari ayaa macluumaad fiican waxa uu ka bixiyay xabajoojinta sida ay u dhacayso tirada maxaabiista la sii deynayo maalin kasta inta la deyn doono isaga ayaa ka warbixiyay afhayeenku waxa uu sheegay maalinta biri 7 subaxnimo inay maxaabiis isdhaafsiga bilaaban doonto waxa kaloo uu sheegay in dhinacyada ay diyaar u yihiin maxaabiistii ay diyaariyeen magacyadana ay soo gudbiyeen xabajoojintan waxa suuragal ah in la kordhiyo ilaa iyo 10 la gaarsiiyo ilaa iyo 10 maalin halkay hadda ay ka tahay 4 maalin oo kaliya dagaalyahanada iska cabinta waxay sii deyn doonaan ilaa iyo 50 maxaabiis ah 4 maalin ee soo socota micnuhu wuxuu yahay ilaa iyo 13 maxaabiis ah oo haween iyo caruur maalintii inay sii deyn doonaan dagaalyahanada Hamas hay-adda bisha cas iyo hay-adda lanqeyrta cas ee labada dhinac ayaa si toos ah kaga qayb qaadanaya isdhaafsiga maxaabiista iyaga ayaana mar walba lagu wareejin doonaa kadibna waxay u kala gudbin doonaan meelihii ay ka soo kala jeedeen maxaabiistan afhayeenku waxa intaas uu ku daray in diyaaradaha Israa'iil gabi ahaanba ay joojin doonaan duulimaadyada koonfurta marinka Gaza sidoo kale Israa'iil waxay joojin doontaa duulimaadyada diyaaradaha droniska iyo kuwa kale muddo 6 saac ah maalin kasta dhinaca waqooyi ee marinka Gaza oo 6 saacadood diyaarad lagu ma arki karayo dhinaca waqooyi laakiin koonfurta marnaba diyaarad lagu ma arkayo 6 saacad waxay ka bilaaban doontaa 10 subaxnimo ama 4 saac waxaana ay ku eg tahay 4 galabnimo ama 10 saac oo galabnimo waa dhinaca waqooyi ee magaalada Gaza afhayeenku waxa kaloo intaas uu ku daray wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Qatar u hadlay in 3 kasta oo maxaabiis Falastiini ah oo haween iyo caruur ah lagu bedelan doono hal maxbuus oo Israa'iili ah micnuhu wuxuu yahay in 50 maxaabiis ay sii deyn doonaan dagaalyahanada iska caabinta oo haween iyo caruur ah iyo kuwa da'dooda ay ka hooseyso 18 ilaa 19 sano waxaana dhinaca Israa'iil la sii deyn doonaa ilaa iyo 150 maxaabiis ah sida uu sida cad u sheegay caawa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Qatar waxa suuragal ah marka in xabajoojintan la kordhiyo ogolaha wasiirada Israa'iil xubin ka tirsan oo Ariyesh Deri lagu magacaabo oo warbaahinta la hadlay waxa uu yiri waxaan diyaar u nahay inaan sii kordhino muddada xabajoojinta oo ilaa iyo 10 maalin aan gaarsiino haddii 10 maalin min 10 maxaabiis ay sii deeyaan dagaalyahanada iska cabinta Falastiiniyiinta micnuhu waxa uu yahay ilaa iyo 100 maxaabiis ay deyn karayaan 10 maalin Israa'iil waxay bilowday inay ka soo degto geedkii dheeraa ee ay saarneed kadib markii ay ku guuldareysatay in ka badan bil iyo bar dagaalka bahalnimo ee cirka iyo dhulka ah ee ka soconaya marinka Gaza waxaana ay ogaatay in diyaaradaheeda iyo taangiyaduba aysan dib u soo celin kareynin maxaabiista laga haysto fashilka istiraatiijiyadeed ee Tel Aviv
waa inaysan soo ceshan maxaabiistooda xitaa ay ogaan waayeen halka lagu hayo maadaama aysan ka saarin dhaqdhaqaaqyada dagaalyahanada iska cabinta falastiiniyiinta. sheekadu waxay ku soo ururtay marka in wada xaajood la galo, heshiis bilow ah la sameeyo, maxaabiistana la isdhaafsado. sidoo kale cadaadiska ay warbaahinta Israa'iil ee gudaha ay saartay maamulka Netanyahu ayaa qayb ka ah heshiiska, maadaama tan iyo wixii ka dambeeyay howlgalkii duufaanta Al-Aqsa ay cinwaanada ugu sarreeya wararkooda ka dhigayeen in muhiim ay tahay Tel Aviv in dagaalyahanada Xamaas wadahadal ay la gasho si loo sii daayo maxaabiista. guusha ay iska cabinta Falastiiniyiinta ay ka gaareen heshiiska isdhaafsiga maxaabiista waxa uu ku yimid awood ee kuma uusan imaanin tuugmo iyo baryo. guushana waa guul u soo hoyatay dhammaan kooxaha iska cabinta Falastiiniyiinta maadaama xogtooda la ogaan waayay. laakiin dhinaca kale khasaaro weyn ayaa soo gaaray dadka shacabka ee Falastiiniyiinta oo 60% guryahoodii waa la burburiyay, in ka badan 14,500 oo ruuxna Israa'iil waxay ku dishay 48 maalin. si kastaba haatee hadafka ugu weyn ee dagaalyahanada iska cabinta Falastiiniyiinta wuxuu ahaa heshiiska isdhaafsiga maxaabiista iyo in la faaruujiyo dhammaan xabsiyada Israa'iil lagana soo daayo maxaabiista tirada badan ee ilaa 6,000 oo ruux gaaraya, inkastoo 3,000 oo ruux la sheegay inay haddaba ay xireen intii dagaalka uu socday. dhinaca Xisbullah haddii aynu eegno waxay sheegeen 4 ka mid a ciidanka Israa'iil inay dileen gelinkii dambe ee maanta kadib markii deegaanka Almanara lagu magacaabo ay ku rideen gantaalada la hago. waxaa kaloo ay sheegeen inay bartilmaameysadeen bar control ay ciidamada Israa'iil ay ku sugnaayeen, bartaasi control oo lagu magacaabo Tal Khazan Hill. halkaas ayaana ay sheegeen inay ku dileen ilaa 4 ka mid a ciidanka Israa'iil. waxaa kaloo soo baxaya in dhinaca koonfureed Lubnaan goob ay ciidamo ay ku kulansanaayeen in lagu bartilmaameysaday maanta, oo Xisbullah waxay leeyihiin waxaan bartilmaameysanay deegaanka Almalikiya, deegaankan oo ay ku sugnaayeen ciidan badan oo Israa'iiliyiin ah. dowladda Qatar waxaa lagu warramayaa maanta in ay marinka Gaza ay ka qaaday ilaa 20 ruux oo Falastiiniyiin ah kuwaas oo dhaawacyo halis ah qabay. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Qatar ayaana sidaasi warbaahinta u sheegay oo waxa uu yiri waxaynu ku guuleysanay inaynu halkaa ka soo saarno ilaa 20 ruux oo dhaawacyo halis ah qabay. waxaa lagu warramayaa hadda in la geeyo deegaanka Al-Arish, kadibna waxaa la sheegay in la doonayo dowladda Qatar inay diyaarad gaar ahaaneed u soo dirto laguna daaweeyo magaalada Dawxa. waxaa soo baxaya macluumaad kale oo ku saabsan in iska caabinta Falastiiniyiinta iyo ciidanka Israa'iil caawa ay si adag ay ugu dagaalamayaan dhinaca waqooyi. saacadaha ka harsan xabad joojinta mid kasta hubka uu haya ayuu doonayaa inuu rido, laakiin xabad joojinta kadib sida uu xaalka noqonaya lama oga. madaxweynaha dowladda Masar Cabdifataax al-Siisi waxa uu si weyn kaga digayaa weli in barakicin qasab lagu sameeyo dadka shacabka ah, oo waxa uu yiri barakicinta dadka Falastiiniyiinta ee laga soo barakicinayo marinka Gaza lana geenayo gudaha dalka Masar waa qadcas, mana ogolaanayno. sidaasi waxaa yiri madaxweynaha dowladda Masar Cabdifataax al-Siisi oo caawa warbaahinta la hadlay. guud ahaan barnaamijkan waa naga intaa, wax walba oo ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa insha Allah.